boosho macalin cismaan waa hooyo ka soo qaxday baadiyaha deegaan hoostaga degmada Kunturwaare ee gobolka Shabeellada Hoose. Intii ay ku soo jirtay safarkeeda qaxa waxay ku weysay 4 carruur oo ay dhashay kuwaas oo geeriyooday xanuunka jadeecada oo haleelay. Jadaale iga dhinteen inta wadadana iga dhintay mar dhow la imaaday bishaas la imaaday ani marka jadaale waa badan yihiin ummad badan hadda waa dhibno hayaan hadda gadaashay waa dhibno hayaan intii aadna isbitaal imaaday ma jidka ma wadada imaanay leeyahay wadadaas jadaal la'aan way moogtahay baahi iyo waxaas la ma ogi nafaqo dar la ma ogi jadaal ma jirto wadadaas hamar leeyahay marka halkaan iga dhinteen ana saasa ogaanay. Hooyadan ayaa hal mar weysay 4 ka mid ah 5 carruur oo ifka ku haysatay. Kaliya hal gabar ayaa u soo hartay oo hadda kula jirto qaybta carruurta nafaqo darrada ay hayso ee isbitaalka Banaadir. Saygeeda iyo qoyskeeda ayaa ah beeraley reer miyi ah oo degan gobolka Shabeellada Hoose waxaana saameyn xooggan ku yeeshay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolada dalka. tana waa la soo orday isbitaalana imaaday mar hore jadcamo ka dhacno hadan shuman oo ku dhacay waa reesanaysa dhahayn un reebaad leenahay bas hadana hor leeb u nuglaatay aniga Banaadirana soo orday alxamdulillah waa mahadsan yahay nadiif waay. Maam boosho hadda waxa uu soo haray oo kaliya iqro oo 3 sano jira waxaana xaaladeeda lagula tacaalayaa isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Horey waxay u weysay 4 carruur oo ay dhashay waxaana haleelay cudurka jadeecada taas oo ugu darsantay abaaraha dalka ka jira. Filsan duceysane Muqdisho Cable TV magaalada Muqdisho.